maqal iyo daawasho wanaagsan waa markaani qodobadii ugu xiisaha badnaa Soomaaliya caalamka qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo sameysay guddi baahi weyn loo qabay wafdi heer sare ah kana socda caalamka oo Muqdisho ku soo wajahan haddaba ujeedada wararkeena ayaad ku daawan doontaan Jubbaland oo war cusub ka soo saartay xariga Janan iyo xayiraadda Kismaayo ciidamada booliska oo maanta hareereeyay xarunta gobolka Banaadir Somaliland iyo shabaab wada socda ayaa ku soo wajahan Sanaag qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena hadduu eebedmo markaani u diyaar garooba ayagoo intaasi ka faahfaahsan aynu ku bilownaa taliyaha ciidanka daraawiishta Puntland sareeya gaas Yaasiin Cumar Dheere oo haatan ku sugan deegaanada baran ee gobolka Sanaag ayaa si kulul uga hadlay xiisada dagaal ee u dhaxaysa maamulkaasi iyo Somaliland taliya Yaasiin Dheere oo khudbad u jeediyay ciidamada Puntland ee ku sugan halkaasi ayaa sheegay gobolku uu ku jiro xaalad dagaal isla markaana uu leeyahay cadow fara badan gobolkani waad ogtihiin maanta cadow badan ayuu soo wajahayaa xaalad dagaal buu gobolka ku sugan yahay ninna looga sheekeen maayo ayuu yiri taliyaha ciidanka daraawiishta Puntland sidoo kale wuxuu tilmaamay in degmada baran ay ku soo wajahan yihiin ciidamada Somaliland iyo al-shabaab oo wada socda sidoo uu hadalka u dhigay ciidanka goboladaasi waqooyi ka taliya ay soo wadaan iyo al-shabaab oo labadu aan kala harin wada socdaan waxay ku soo wajahan yihiin deegaankani ayuu intaasi raaciyay ugu dambeyn wuxuu carabka ku adkeeyay in Puntland aysan weerar ahayn isla markaana ay iska difaaci doonto cid kasta oo duulaan ku ah inta badan madaxda Somaliland iyo Puntland ayaa dhanka warbaahinta isku mariya eedeymo culus kuwaasi oo marar badan ciidamadu ay ku wada dagaalameen gobolada Sool iyo Sanaag ee waqooyiga Soomaaliya shirka golaha wasiirada ee maamulka Jubbaland ayaa waxaa ka soo baxay qodobo xasaasi ah oo ku saabsan xariga loo geystay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo xayiraadii ay dawladda Soomaaliya saartay garoonka diyaaradaha ee Kismaayo shirkani golaha wasiirada Jubbaland ayaa waxaa shir gudoominayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe golaha wasiirada Jubbaland ayaa wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ugu baaqay in khilaafka iyo tabashooyinka ka jira Jubbaland lagu xalliyo sharciga iyo hay'adaha dawladda dhexdooda golaha wasiirada Jubbaland ayaa sidoo kale cambaariyay xariga sharci darada ah ee loo geystay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur xariga Janan ayaa imaaday xilli maxkamadda gobolka Banaadir ay sheegtay in la laayahay dacwadihii ka taalay iyada oo sheegtay in xeer ilaaliyaha qaranka uu ka dalbaday dacwadaasi golaha ayaa shirkooda ku sheegay in cawaaqibta ka dhasha xariga loo geystay Janan ay mas'uuliyadeeda qaadayso dawladda federaalka Soomaaliya golaha wasiirada Jubbaland ayaa ka hadlay xayiraadii la saaray garoonka diyaaradaha Kismaayo kadib markii ay dawladda Soomaaliya sheegtay in diyaaradaha u socda iyo kuwa ka imanaya Kismaayo ay soo maraan magaalada Muqdisho ugu dambeyntii golaha wasiirada ayaa labadani arrin u saaray guddi ka kooban 7 wasiir waxaana guddigaasi loogu baaqay in ay xal degdeg ah u keenaan xayiraadda garoonka diyaaradaha Kismaayo iyo xariga wasiir Janan ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa maanta xiray 4 jiha ee laga soo gala aqalka dawladda hoose ee gobolka Banaadir ciidankani oo ka tirsan ilaalada gobolka Banaadir ayaa sameeyay godod kadib markii ay waayeen xuquuqdii ay ku lahaayeen dhowrkii bil ee la soo dhaafay askarta qaar ayaa dhagxaan ku jaray albaabada laga soo galo aqalka dawladda hoose waxayna diideen in la galo ama laga soo baxo sidoo kale ciidamada ayaa is hortaagay gaadiid ay wateen agaasimayaal gobolka ka tirsan iyo gudoomiyaal degmo buuq iyo dood muddo taagneed kadib waxaa lagu guuleystay in laga qaado ciidanka gododka sameeyay kuwaasi oo weli ku sugan goobihii ay markii hore deganayeen booliska Soomaaliya ayaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay qaadan wax mushaar ah waxaana marar badan laga soo xigtay iyada oo ku doodaya militariga waxa ay leeyihiin furumo laga soo baxo laakiin anaga ma lihin goobo aan ka soo baxno waxayna arrinkaasi muujinaysaa heerka ay ka taagan tahay ciidanka lagu aaminay amniga magaalada Muqdisho wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Sadiq Xirsi Warfaa ayaa maanta gudoominayay kulankii ugu horeeyay ee guddiga 3 geesoodka qaran ee arrimaha shaqada oo ay soo qaban qaabisay hay'adda shaqaalaha adduunka ee ILO dhismaha guddiga 3 geesoodka qaran ee arrimaha shaqada Soomaaliya oo wareegta ku soo saaray wasiir Sadiq Warfaa ayaa noqonaya markii ugu horeysay ee Soomaaliya laga dhiso guddigani waxaana kulanka maanta ka qayb galay dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedyada dalka xiriirka
ururada shaqaalaha ee Soomaaliyeed ee Festo ee matalayay shaqaalaha iyo rugta ganacsiga ee warshadaha Soomaaliya oo matalayay loo shaqeeyaha madaxa hay'adda shaqaalaha adduunka ILO ee Soomaaliya Saad Gilani ayaa ugu horeyn sheegay in uu ku faraxsan yahay in Soomaaliya ay fulisay mabaadi'da ururada shaqaalaha adduunka ee ILO wuxuuna ku ammaanay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka Soomaaliya in uu ku guuleystay in uu isku keenay guddiga saddex geesoodka wuxuuna sheegay tallaabadani in ay bilow u tahay shaqo abuur xoog leh oo dalka laga sameynayo xogahiyaha guud ee xiriirka ururada shaqaalaha Soomaaliya ee Festo Cumar Faaruq Cismaan ayaa cadeeyay in ay maanta u tahay Soomaaliya maalin weyn wuxuuna ugu mahadceliyay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada mudane Sadiiq Warfaa dadaalada uu geliyay isku keenidda iyo dhisidda guddigani saddex geesoodka qaran iyo qabsoomidda kulanka koowaad ee guddiga Cabdi Abshir Dhoore agaasimaha maamulka rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay qabsoomidda kulankani guddiga saddex geesoodka qaran wuxuuna tilmaamay in ay door muuqda ka qaadan doonaan dadaalada socda ee shaqada wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya mudane Sidiiq Xirsi Warfaa ayaa ku tilmaamay kulankani mid taariikh u ah Soomaaliya wuxuuna cadeeyay in loo baahan yahay shaqo abuur tayo leh iyo in la difaaco xuquuqda shaqaalaha iyada oo doorka ay qaadanayso guddiga saddex geesoodka qaran dadaal dheer iyo waqti badan ayay qaadatay in aan guddigani saddex geesoodka dhisno oo aan kulan u qabsoomno waxa uu bilow wanaagsan u yahay in la hormariyo barnaamijka kobcinta dhaqaalaha oo sahal shaqo u abuuri kara iyo dhowrista xuquuqda shaqaalaha ayuu yiri wasiir Sadiiq Warfaa waa markii ugu horeysay ee dalka Soomaaliya oo ah dalkii ugu dambeeyay ee ILO xubinka uu sameeyo guddiga qaran saddex geesood ah ayuu ku daray wasiir Sadiiq Warfaa guddiga saddex geesoodka qaran wuxuu sahlayaa in la dedejiyo shaqo abuurka iyo siyaasadda horumarineed shaqaalaha iyada oo la waafajinayo shuruucda dalka siyaasadda dawladda iyo qawaaniinta caalamiga ah ee Soomaaliya qayb ka tahay war qoraal oo ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in 12 bishani uu Muqdisho soo gaari doono wafdi heer saraha oo ka kala socda jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa iyo bangiga adduunka ujeedada booqashada wafdigani ayaa lagu sheegay in sare u qaadida howlaha bini'aadanimada Soomaaliya taageerida nabadda iyo dadaalada horumarineed ee dalka wafdigani ayaa sidoo kale waxa uu socdaalkiisa salka ku hayaa sidii loo xoojin lahaa taageerada ay beesha caalamku u fidiso Soomaaliya wax ka qabashada arrimaha barakacayaasha iyo sidii xal loogu gaari lahaa xaaladda bini'aadanimo ugu dambeyn wafdiga ayaa la kulmi doona hoggaanka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada xubnaha ka ah waxayna sidoo kale kulamo la qaadan doonaan hogaamiyaha dadka soo barakacay abaaraha iyo shaqaqooyinka